waxaan u mahad celinayaa degmadan Awbare haday gudoomiye maamulkii ugu sareeyay tahay iyo inteena kale oo soo gurmatay Boorama iyo Awdal gobolka Awdal inooga wada timiday inteena kale qabaleeyada kale fog inooga timiday aad iyo aad baad mahadsantihiin walaalayaal waxa weeyaan dhibaatooyin badan oo dadkeen soo maray waqti badan baan soo raadnay maanta rafaadkii waan ka soo baxnay guul baynu soconaa horumar baynu soconaa meel kasta oo xaqaynu ku maqan yahay baynu dalaynaa wax dib loo noqonayaa ma jirto horumar baynu ilaahay ka baryaynaa qodobada la soo jeediyayna waa 6 qodob ee shirkeenni ka soo baxay iyo kuwa kale oo markaa meelihii ay ku habboonaan la geyn doono waxa weeyaan walaalayaal sida horumarka maanta aan u jeesanay inaan qodobadana fulino gacmaha isqabsano wada jirka midnimada aan ku dadaalo ayaan walaalayaal u baahnay Gadabursi waa mid kaliya waxa weeyaan waxa qaybsi iyo ma arkaysa qabiil hoose kuma noqonayno waxa weeyaan Gadabursi bay noo taagan tahay halka wax ka hooseeyo ogolahay ma jirto qofkii waxa maaragtay noola yimaada waa wixii Ingiriiska dhulkeena markuu ku soo duulay halka badda odayadeena iyo ugaasyadeena ay kaga hortageen oo ay halka ku joojiyeen inuu dhulkeena soo galo loo diiday marka walaalayaal dhulkeena difaacasan mar walba u nahay dhalinyaradeena inaan gaarsiino dhalinyartooda aan sii gaarsiino dhulkeenu horumar dhulkeena inaan wax ka qabsano inagu isku tashano ayaa loo baahan yahay wax kasta waan qabsan karnaa ummad midowday jidad bay dhisan kartaa wadooyin bay samaysan kartaa qacmo wada jir marka la isku geeyo wax kasta aynu qabsan karnaa walaalayaal inagu aan isaamino aan isku tashano daacadnimo aynu ku dhaqanno hadii ilaahay wax inaga soo siiyo dadka aanu la tagayno go'aankeena waxa weeyaan tolkuun baan dhex keenayaa tolkeenu baan dhex keenayaa miiskaas wax lagu qaybsani wax inaga xumaanaya ma jiraan ani saamina walaalayaal qurba joogaday tahay haday qulqul joogtahay meel kasta oo Gadabursi joogo waxaan ugu baaqayaa inay mid kaliya noqdaan aan inaguna wax qabsano inagu meel kasta oo ay baahi jirto meel kasta oo ay dhibi jirto aan wada jir ku gaadhnaan u baahanahay marka Allah ina mideeyo caafimaad Allah ina wada siiyo ilaahay mustaqbalkeena Allah kor u aado ilaahay ummad isjecel oo walaalo Allah inaga dhigo ilaahay qaybiyo xukuntii haynaga hadho aamin qaybiyo xukun muddo badan baan soo aragnay ilaahay haynaga qabto ilaahay dumarkeena Allah inoo barakeeyo gabdhaheena Allah barakeeyo odayadeena Allah barakeeyo dhalinyarada harawa oo hool iyo hiilba maanta ina garab gashay Allah barakeeyo ilaahay mustaqbalka dhalinyaradeena Allah inoo hirgaliyo ilaahay dhulkeena barwaaqo badan Allah inoo galiyo ilaahay diinta ilaahay jidka nabigu maray Allah ina mariyo keenaareed Allah inaga duwo ilaahay inagu isjecel oo qalbigeena Allah isku furo midnimana inagu ogahay walaalnimana inagu ogahay niyad fiican baan inagu ogahay horu socod baan doonaynaa inuu ilaahay ina gaarsiiyo ummadaha kale oo dhan ka horeyno ilaahay darajadeena sidaan ahaan jirnay si ka fiican inaan noqono iyaan ilaahay ka baryaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin wa salaamu calaykum shirkeenuna oo inoo xidhan yahay